soo dhaweynta bisha ramadaanka oo si kale loo fasirtay ayaa rabaa maanta inaan ka hadlo faahfaahiyo mawduucan. أهلا يا رمضان الجود، أهلا يا رمضان، يا شهر النور المشهود، يا شهر النور. صوم بالله idinku waajib yeelay sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horeeyay. maxaa la inoo waajib yeelay? ma ciqaaba oo inta la ciqaababa dambiga la inaga maydhaya maya. ilaahay aayadka dambe wuxuu leeyahay yuriidu allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra. ilaahay wuxuu idin la rabaa inuu noloshaba idin fudaydiyo. soonkaba waxaa la idin faray in noloshu idin fududaato baa la leeyahay. culaysna rabbi idin lama rabo. idan soonka culays kuma jiro haddii sidii sharcigu uu sheegay loo samaynayo. waxaa ilaahay ina farayaa sababtu waa maxay? lacalakum tattaquun, ina mansilatu taqwa gaadhaan. aslu lcibaadaba mansilatu taqwa bay ku gaadhsiisaa. yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaahay yidhi. wardadow rabbigiin caabuda, idinka idin abuuray iyo kuwii idinka horeeyayba. maxaa u caabudaysaa? lacalakum tattaquun. kayfa tattaquun? haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanay ramadaan in loo diyaar garoobo. hordhac sidaan ku sheegay waxaan ka hadlayaa soo dhaweynta bisha barkeysan ee ramadaanka. soo dhaweynta bisha barkeysan ee ramadaanka waa astaan lagu garanayo dadka muslimiinta ah. waagii hore asxaabta bisha ramadaan way soo dhaweyn jireen. xataa ilmaha yar sidii loo fahansiiyey weynaanta bisha ayaa waxaa la dhahay alaab ay ku ciyaaraan waxaasaa la siin jiray. laakiin hadda xilligan la joogo ilmaha alaab loo soo gadaya ma ahane. waxaa dadkii waweynaa ayaa waxay sameeyaan guryaha inay quruxsadaan, astaamo ay u sameeyaan bisha ramadaan ee lagu garan karo, taasoo loogu tusaale qaatay meelo kale laga soo qaatay. waxaa laga yaabaa dad qaar inay dhahaan maxaa dhib kaga jiri karo oo dhib kaga imaan karo faynuusyo ama nal la shito oo dariishadaha nal la shido. dhib weyn waa ka imaan karaa. sidii sawirada hadda idinkaga muuqdo kale meeshan waxaa ujeedaan bil loo sameeyey sidii geedihii sida Decemberka xilliyada oo gaalada ay samaystaan oo kale camal loo sameeyey nal lagu sharxay. yacni sida Decemberka loogu tusaale qaatay camal oo kale waayo. iyadoo ay jirto dhaqan bedelka inuu aad u degdegi karo isbedeli kara, haddana waxaaba khalad ahba in dad kale ummad kale looga daydo diin ay haysato oo ugu tusaale qaadato sida sheekh uu leeyahay oo kale. soomaynaan khudbkii ku saabsanaa mawduucan maynaan ku soo bilaabin inuu nebi maxamed ina yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ahlulkitaabka dariiqyadooda dabagelaysaan tilaabo ilaa hadday xataa god cidhiidhigii oo urahayo oo mugdiya ay galaan waad ka dabagelaysaan.